wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar ayaa maanta waxa uu booqday xarunta jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Turkiga. waxgaradka magaalada Istanbul ayaa wasiirka iyo wafdigiisa waxay u soo dhaweeyeen si diran oo kalgacal ku dheehan iyadana wasiirka iyo wafdigiisu ay aad u soo dhaweeyeen isu duubnida jaaliyadda iyo waliba dadka kale ee ku dhaqan waddankan Istanbul. shakhsiyaadkii goobta soo dhaweynta ka hadlay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankan Turkiga Sheekh Maxamed waxaana hadaladiisi ka mid ahaa. waxaa farxad noo ah in meeshan uu lagu soo booqday wasiirka duulista hawada sare Omar Mr. Omar marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay booqashadiisa maxaa yeelay laba sababood. sababta koowaad waa wasiirkii ugu horeeyay oo ka socda dawladda Soomaaliya oo soo booqda jaaliyadda Soomaaliyeed oo lagu furay waddanka Turkiga marka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa nasiibkiisa noqotay inuu mas'uulka ugu horeeyay uu noqdo soo booqdo marka waxaan leenahay wasiir ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow Turkiga. wasiir Omar ayaa dhankiisa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu soo booqdo guriga jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankan Turkiga. gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee waddanka Turkiga iyo dhammaan community-ga Soomaalida ee degan waddanka Turkiga waxaan uga mahadcelinayaa martaqaadka ay nagu martaqaadeen xafiiskooda jaaliyadda Soomaalida ee Turkiga. runtii si wanaagsan oo noo soo dhaweeyeen maalintii aan nimid airportka ay noogu yimaadeen jaaliyadda gudoomiyaha iyo asxaabtiisa oo dhan halkaas ay noogu yimaadeen. dadkani waa jaaliyad aad iyo aad u wanaagsan oo runtii ay ku weyn tahay Soomaalinimada waxay soo raadiyeen dawladda markasta oo ay timaado waxay si gooni ah ula shaqeeyaan safaaradda. waxa hadda ay na tusayeen oo faylasha gadaasheeda yaala ka mid ahaa sida ay u register gareeyaan Soomaalida degan magaalooyinka kala duwan ee Turkiga. annagana farxad ayay inoo tahay mar haddii aan halkan shaqo u soo gaarnay inaan la kulanno shacabkeena Soomaaliyeed inaan kula kulanno meelaha aan tagno. waana uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha iyo tiimkiisa shaqada wanaagsan ee ay hayaan isu keenaan shacabka iyo supportiga ay dawladda siiyaan iyo inteenaba. marti sharaftii kale ay ka soo qayb gashay soo dhaweynta wasiirka iyo wafdigiisa ayaa aad ugu ammaanay wasiirka waqtiga uu siiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Turkiga iyo waliba soo booqashadiisa guriga jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Turkiga ee magaalada Istanbul. Salman Jamal Saeed TV-ga caalamiga Universal Istanbul.